daawadayaal waan idin salaamayaa meelba dunida ka joogtaan. barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay waa dagaalkii u dhaxeeyay dawladihii Israa'iil iyo wadankaasi Masar sanadii 1973 kadib markii dawladda Israa'iil ay 1960 iyo todobadii ay ka qabsatay dhulkii waqooyi galbeed ee wadankaasi Masar ee lagu magacaabo Jasiiradda Sinai. dagaalkan ayaa soo rogaal celiyay kadib markii dawladda Masar ay ka quusan weyday dhulkii laga qabsaday 1960 iyo todobadii. waxa ayna qasab ku noqotay in ciidanka Masar sanado kadib in ay xiriir la yeelato wadankii midowga Soviet oo xilligaana ay ka soo iibsatay hub aad u fara badan oo tayo leh. taasi ayaa soo dadajisay in Israa'iil ayadoo 6 maalmood ay dhulka ku qabsatay laakiin 27 saacadood laga gacan maroojiyay ay faraheedana uu ka baxay dhulkiisa. daawadayaal goobtan aad iminka u jeedaan waa goobtii uu dagaalkii aadka u baahnaa uu ku dhexmaray dawladihii Masar iyo Israa'iil sanadii 1973